بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي سلامي غيرتا سوشيال ميديا igala socota Facebook YouTube iyo waliba dhammaantiin waxaan leeyahay habeen wanaagsan oo wacan. hadda waxaan leeyahay soo dhawaad barnaamij kale oo gaar ah oo aan kaga hadli doono hadduu Allah awood leh uu saamaxo marxaladda dalka uu ku jiro maqalka iyo siduu yahay soo sheega. sida ogtihiin dalka isbedel ka dhacay. hadda isbedelka markuu dhacay dad badan oo arkay meeshii inay ka dhalatay dooro ama kacaan inuu wadankii qabsaday. maanta waad ogtihiin waxa ka dhacay Dhobley madaxweynihii Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Dhobley yimid fadlan si shargaraya. Uhuru Kenyatta ayaa maanta yimid waxaan hubaa oo ay ogeyn madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Farmaajo inuusan ogeyn imaatinka Uhuru Kenyatta in aysan ogeyn oo aysan ka warqabin golaha wasiirada Soomaaliya ee hadda sii haya xilka in aysan ogeyn saraakiisha ciidanka. sidee ku dhacday in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu yimaado Soomaaliya haddana waraysi arrintaas ku saabsan ayaa idiin soo gudbinaya. haddana Uhuru Kenyatta inuu yimaado oo uu meel dhagax dhigo haddii Xasan Sheekh Maxamuud maanta uu joogi lahaa waxa dhaca waa la yaabi lahaa. waxa dhaca iyo waxa gabayo la tiriyo waxa leef Facebook la soo galo waa la yaabi lahaa. waxa dhihi oo maanta dhan la sheekin lahaa waxa leeyahay Kenya wadankii qabsatay Dhobley Uhuru Kenyatta dhagax dhigay Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Galguurta bixiyay gabadhaada guur ma laha gabadha Abgaal guur ma laha maanta la dhihi lahaa gabadha Abgaal guur ma laha. hadda waad ogtiin Xasan Sheekh Maxamuud markuu aaday meesha la yiraahdo Jigjigo gabdhihii Abgaal oo dhan ay ku yahawiye waxa la yiri wax guur ma laha waa la soo gabiyo waxa u badnaa wax gabiyay oo lafta ogaadeenka iyo lafta muxuma adiga daaroodo dhan. hadda wax lama qariyo ma ogtihiin YouTube garay sida Xasan Sheekh Maxamuud loo caay iyo nacalada lagu ridaay Xasan Sheekh Maxamuud lama xisaabi karo. war Uhuru Kenyatta wariyaasha xataa waxay ku soo baraarugeen maqribkii maanta maqribkii ayaa waxa la arkay sawiradiisa oo Uhuru Kenyatta meel walba daadsan. Uhuru Kenyatta sawiradiisa oo hadda meel walba daadsan asoo dhagax dhigaya bartamihii Dhobley bartamihii Dhobley ayuu dhagax dhigayaa. cid ka hadlayso Facebook soo gashay nin gabiyayo oo farmaajo u gabiyay nin qeylinayo oo yiri dhulkii Soomaaliya la qaatay ma jirin. alla ilaahay Xasan Sheekh Maxamuud shalay Soomaaliya si fiican ii dhageysta gaar ahaan dadkan la hadlayo way yaqaaniin. Xasan Sheekh Maxamuud shalay wuxuu u qeylinayay badda Soomaaliya badda Soomaaliya oo yirabta Kenya inay qaadato ayuu Xasan Sheekh Maxamuud ka qeylinayo uu dhahay alla ilaahay badda lama qaadan karo fadlan sii sheegay badda lama qaadan karo baddi soo waxa la fiiri waxa la yiri qofka meedka iyo godka lama kala qarin karo oo meedkii waxa loo sii wadaa god in Soomaalida wax ay qarisa ma ah. war Xasan Sheekh Maxamuud baddi ayuu soo dhicinay uu dhahay alla ilaahay baddiya Kenya qaadatay. maanta sidee ku dhacday Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya in bila fasax la'aan bila amar la'aan ayadoo dawladda Soomaaliya aysan ogeyn inuu yimaado Dhobley ay yimaado ciidamadiisa jooga soo booqdo. laakiin kow waxay ahayd in Uhuru Kenyatta uu soo wargeliyo dawladda Soomaaliya in dawladda Soomaaliya uu soo wargeliyo in meediyaha warbaahinta ay ogaato in Uhuru Kenyatta uu imaanayo. war waxa la yaabanahay dhalinyarada Muqdisho degan ama koonfurta degan war damiirka la adiyin shalay markii Xasan Sheekh Maxamuud la caynayay oo loo gabiyay idinka wax gabiye ma leedin wax tiriye ma leedin wax indha furan ma leedin idinka dhan waxa tiin dad hurda. war madaxweynaha waxa laga rabaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ka jawaabo sababta keentay in Uhuru Kenyatta uu yimaado Dhobley bila fasax la'aan. maxaa keenay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta Sharmaaka Daahir aadan ku salaamaya shakra maxaa keenay communitydin oo aqrinaya maxaa keenay ilaahay idinku dhaarshay in Uhuru Kenyatta bila amar la'aan inuu yimaado Dhobley uu dhagax dhigo. maxaa keenay in laga aamuso oo aan laga hadlin oo la qariyo. war wixii shalay hadli jiray ma farmaajo kureer ahaayeen wixii shalay Xasan Sheekh Maxamuud farqaha ku dhignaa oo u gabiyay ma farmaajo isku reer ahaayeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. qofka markuu qalad galo waa in la qabtaa. sidee ku dhacday Soomaaliya dawlad leh in Uhuru Kenyatta uu yimaado uu dhagax dhigo Dhobley sidee ku dhacday
sidee macquul ku tahay in Uhuru Kenyatta uu dhoble inuu yimo isku soo sawiro uu dhax galo asoo la soconin taliyay ciidamada xoogga asoo la soconin wasiirka gaashaandhigga asoo aysan ogeyn wasaaradda arrimaha gudaha asoo aysan ogeyn madaxweynaha sidee ku dhacday in Uhuru Kenyatta uu yimaado dhoble uu dhagax dhiga meel ama Uhuru Kenyatta ogaadeen uu noqday hadda Uhuru Kenyatta ma ogaadeena kismaayo ogaadeena haystaan la haye Uhuru Kenyatta ma ogaadeen uu noqday noo sheega lama rabo moogta in wax la qariyo lama rabo hadda kismaayo shalay la qabsado la haye Kenya qabsatay hadda Uhuru Kenyatta Maxamed Zuweer uu noqday Uhuru Kenyatta Maxamed Zuweer ma ogaadeena Uhuru Kenyatta محمد زوير ogaadeen uu noqdo oo bila amar la'aan bila fasax la'aan iska imaan kara dhoble iyo kismaayo iyo wax dhagax dhigi kara aaway dadkii shalay markii xasan sheekh maxamuud uu aaday meesha la yiraahdo jigjiga aaday qiinta aaway arinta ka weyn nimankii badda Soomaaliya badda aan ku haysay madaxweynahooda iska yimid oo bila amar la'aan dalkii soo galay bila amar la'aan isha dhagax dhiga meel arintaas ka weyn Soomaalida damiirki ma beeleen muxuu ugu hadli waayay madaxweynaheena aaway madaxweynaha sheegaysaan aaway wadaniga daacadda ahaa yaa hadda waxa qeeliyo dhan waa hal reer aniga mida ogaad horta waxa qeeliyo jaq 24 sac dhaha waa hal reer waxayna isku dayaan dadka kale inay aamusiyaan wariyaan nama aamusin kartaan wallahi billahi taala afkeena qaban karinna نعسياتي هذا اسكو ديدا انا اموسيسان هيهات لما توعدون وحرونت idin sheegan laadiin war sidee ku dhacaysa maxaa aniga midaan la yaabanayo waxay tahay maxaa loogu aamusan yahay oo dawladda aysan war ugu soo saarin Uhuru Kenyatta oo yimid dhobley oo haddana dhobley dhagax dhigo sawiro dhobley iskaga soo qaaday war hadda ninka waa ogaadeen dhaha